ورحمة الله وبركاته. وإن السلام يا مرك هره دمان والله يجا سوماليات هل كان يجا دعوانا يا ميل والبو أجوبتان يسوي والبود إما على سامبا وإن صو سلام يا وحن كهذا دونا صدق حرمود وهداي عن سوق قري وعن ربيع عن كهذلو وكعذر دارنا يا وقت جي عن قبصدي دقيقة إكسترا عن قدري لا 8 دقيقة وحلا جرا وإن كره على جرينا يا تدخلي بالصومالية شو جاي لايف كان أي لا دعوضان أم لا دعوضان وحلا قدر بقطعي وكعذر دارنا يا waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo aan isleeyahay oo meelaha ugu muhiimsan oo mudan maanta inaynu ka hadalno iyo waxyaalaha aan ka hayo ka soo arooriyana waan idin sheegi doonaa. waxaan ku hormari doonaa imaaraadka carabta oo faragelin qaawan ka dhex wada magaalada muqdisho iyo doorashooyinka oo xaaladdu runtii ay cabsi weyn leedahay markii laga fiiriyo dhanka qof kasta oo wax garanaya ama muwaadin ama wadani ah uu fiiriyo sida u socdaan waa arrin aan wanaagsanayn. waxaan kaloo ka hadli doonaa kuraastii 16 ahayd ee gobolka Gedo sidaasay ku tagtay wala soo celi doonaa arrintoodii ma taagan tahay dadku waa ka aamusan yihiin ilaa ay haddana xoogaha cid soo diyaarinaysa ma arag taana baan ka siin doonaa xog baan ka siin doonaa. waxaan kaloo finally ka hadli doonaa iyo doorashada u dhaxaysa qof walba sharax buu wataa durbaan baa la tumayaa warbaahintan ka arkayay advertisement aan la yaabay daayta aad baan u qoslo waxaan arkayay qolo aanu malaynayo inay Shariif Sheekh Axmed ay markaasi ay rally campaign u sameeyaan oo page-kiisa ay soo dhigeen cod iyo video la duubay marka sida alaabta loo xayisiin jiray Horn Africa iyo meelaha looga xayisiin jiray baa loo xayisiinayaa markaysaan waa arrin la yaab leh weeye in qofka la yiraahdo hebel doorta waa qof sidaaya waa qof sidaaya waa qof waa micnihii waa qaabkii istiraatiijiyadda ay u marayaan xataa in campaign-ka la sameeyo ayay qaldayaan alaab product bay ka dhigayaan qofka si loo xayisiinayo it's funny ما قف إلا حيسي شخصية دي سواء في عن ضمتي سامع عن بكله أنا جايست كم عدم كم باللابو أرنتا إمارات كعربتا حاس عدا فرجلين قاون أو سفير كإمارات كعربتا وكوهايو dalka Soomaaliya doorashada Soomaaliya waxaan xoogada ba ku helay dad lagu kalsoon yahay hadalkoodu soo laabanaynin ay soo gaarsiiyeen in afartii habeen ugu dambeysay uu si toos ah safiirka imaaraadka carabtu uu ula fadhiyay oo ula shirayay hal hotelna uu la joogay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madow ninkii aynu dooranay oo dalka iyo dadkaba ku dhaartay oo gacanta kitaabka loo geliyay odayga ahaa weeye ninkaasi wuxuu sidoo kale ninkaani uu habeen walba iyo mararka qaarkood maalmihii waa asaguna shirar la qaataa ka socda imaaraadka carabta safiirkooda ah nimanka musharaxiinta ah ee xilka madaxweynaha raadinaya dalkii waxaa soo galay lacag aad iyo aad u fara badan oo ka timaaday dalka imaaraadka carabta waxaana socda dabayl xoog leh oo dowladdaasi imaaraadka carabta ka imaanaysa oo la doonayo in markaasi wixii xoog iyo dhaqaale iyo awood iyo xeelad iyo musuq maasuq iyo wax walba oo la samayn karo si farmaajo meesha looga tuuro ayaa laga shaqaynaya waxay imaaraadka hadda marka ay si toosa u amraan aan iraahdo way amraan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka amar qaata dowladdaasi imaaraadka laba qorsho oo uu sameeyay gudoonkuba waxa la xaqiijiyay inay yihiin awaamir ka timaaday dhankaasi imaaraadka carabta mid waa waraaqdii la soo saaray dhowrka maalmood ka hor oo la yiri kuraasta la isku hayay ee gobolka Gedo waxay si toosa kuwa cilqalaba loo u shaqeynaya kuwa kalena waa la tuuraya waraaqan saxiixinayn gudoon aan fariisanin raggii asaga ka hoosay inay ku raacsan yihiin kala aan la ogeyn halkaasi arrintii gashay waxaan awl filayay oo aan ogaa mar walbaba markaad fiiriso arrimaha kuraasta Gedo la xiriirta markaad fiiriso mar walbaba waxyaalaha soo hoosgalaya fara badan baa soo hoosgalaya tusaale oo kale xagga sharciga kuraastan way qalday dhanka madaxweynuhu ka taagnaa waxay dhan waa la iska laabay waa la socodsiiyay waan ka hadli doonaa marka qodob kale uga hadli doonaa kuraastaasi halkay xaaladooda ku dambayso iyo halka dhanka filada waxyaalaha laga soo sheegayo wararka ugu dambeeya marka imaaraadku carabta laba qorshe ayuu fuliyay sidaan xogaa ku helnay mid waa waraaqdaasi inuu socodsiiyo midna waa in ciidanka qaranka laga saaro teendhada labadii waraaqo ugu dambeysay tii shalay iyo tii maanta ka soo baxday gudoonkuba waxay labaduba si toos u dhaarnaayeen awood dhimis lagu sameynayo ciidanka qaranka iyo kor u qaadis lagu sameynayo ciidamada la yiraahdo ATMIS markoodii horna AMISOM loo jeedo ciidanka teendhadaha ka baxo oo banaanka ka joogo si ku meel gaar ah gudaha waxaa soo galaya ciidamadii madowga ah wadaas daamin
haddaad aragtaan nin soomaali ah oo muwaadin ah oo mas-uul ah oo sheeganaya inuu mas-uul yahay islamarkaasna ciidanka qaranka iska riixaya soo dhawaysanaya ciidan shisheeye waa calaamad lagu yaqaano inuu yahay jaajuus u shaqeeya shisheeyaha waxaynu arkaynay dhowrkii sano la soo dhaafay in duulaan lagu ahaa ciidanka qaranka in maalin alla keena la dhahayay ciidanka qaranka siyaasadday ku dhex milmeen doorashada faraha kala baxaan annaga hadda lagu soo wareejiyo arrintii 4 sano ee lasoo dhaafay afka laga sheegayay oo practical ah ayaynu hadda si toosa u dhex galnay guddoonkii baarlamaanka ayaa maanta shalna sheegay in ciidanka bannaanka laga saaro oo haddii dadka imaanaya ee musharaxiinta ah iyo martida ciidanka la socda ay ciidan soomaali yihiin oo bannaanka lagu reebayo inay la soo galaan maxay ku samaynayaan haddiiba qofku asaga uu ku keenay soomaaliya oo bannaanka ku keenay ama iridka uu taagan yahay inuu gudaha kula soo galaa maxay soo kordhinaysaa haddiiba aad la socotay markii hore ama uu bannaanka ku taagnaa cid ka jaabi karta ma jirto wax lagu soo qoray waraaqdaani oo sabab ah oo keeni karaya in ciidanka dalka la yidhaahdo bannaankan loo saaro waxaynu filaynay oo aynu ka shaqaynaynay oo loo hanqaltaagayey inaynu aragno ciidanka atmis oo dalka laga saaray iyo ciidanka soomaaliya dalka la wareegay wixii laga shaqaynayay kala guur labada ciidana bay ahaayeen laakiin hadda waxaa dib aan u galnay inaynu ku laabanno meesha aynu ka nimaano arkaysa marka waa musiibo dadka soomaalida usoo hoyatay waa dadkii ay doorteen waa xildhibaankii aynu dooranay oo guddoonkii baarlamaanku ay doorteen baarlamaankeenii waa ninkaa wey marka I think inay tahay inaynu price ka bixino marka we have to pay the full price maadaama aynu qof noocaaya dooranay wixii nooga yimaado inaynu aqbalno wey marka arrintaasi halkaas inoo joogaysaa kuraasta ceelqalow waxay soo mareen marxalado kala duwan oo aad u fara badan bay soo mareen stageyo kala duwan bay soo mareen waxaa 3 sano waxaan ka yarayn kuraastaasi laga hortaagan yahay dadka shacabka ee reer gado gobolka ay leeyihiin dad kala duwan baa laga hortaagay arkaysaa qof kasta oo soomaali ah oo xil loo dhiibo wuxuu noqdaa qof u shaqeeya maxaa la yidhahdaa dadka shisheeyaha ah ee kenyaanka iyo imaaraatiga iyo nimankaasi ee doonaya in kuraastaasi dadkaasi la boobo qof ayaga u gargaara unbuu noqdaa ma noqdo qof xaqa u gargaara mana noqdo qof soomaali ah oo fiiriya xataa meel dhexaada ka istaaga xataa ma noqdo robla la keenay oo ra-iisul wasaare dalka laga dhigay doorashada socodsii baa la yidhi garbaharey buu tegey waa fiican tahay buu yidhi asagii baa haddana afkiisa ka yidhi ma fiicin lagumana qaban karo doorasho waxa alla wuxuu ku dhisay cidda mataqaana waa saas ku tagay taariikhaasaa u gashay listiga oday kale oo ka ganacsan jiray inuu geedaha iyo waxyaalaha kaleeto ee khayraadka dalka uu leeyahay uu dhoofiyo ee muuse geele la oran jiray ayaa isaguna la keenay oo guddoomiye looga dhigay fit oo mas-uuliyiinta la eg baa loo dhiibay asaguna halkaasuu ku biiray ceel waqbu iyo ceel qaalow buu la aaday doorashadii loo qabtay oo waraaqda ay gacantiisa ku qoran in garbaari lagu qabtay halkaasuu la aaday waa qofkii labaad axmed madoobihii sheeganayay inuu meesha madaxweyne ka yahay ayaa isaguna dhexdhexaad ka noqon waayey oo isaguna horena aynu u naqaanay halkaasuu la aaday odaygii dhabanacada lahaa asna 90ka jiray baa la keenay oo la yiri bal odaynimo maadaama dastuurku qaba loogu dhiibo arrintaasi asaguna waa kii sa u gariirayay maalinkii ugu dambeysay uu ka dhaxalay baarlamaanka baan aad ola yaab 3 su'aalood baa la weydiiyey sideed u aragtaa baa dalka sida u socdaa la weydiiyey sideed u aragtaa dalka sida u socdo qofku waa inuu ka hadlo halka dalku ku socday wuxuu dalku noqon karay sida isagoo ay la tahay wuxuu ku jawaab mataqaanaa wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa 16 kursi ceel qaalow iyo kuwa kaleeto kolley kuwa sharci soo galaya dadar yaa waxa ku weydiiyay adiga midka la weydiiyay waxaa la yidhi guddoonka doorashada uu wada ka waran see u aragtaa haddana wuxuu yidhi kolley anigu waxay la tahay kuraasta ceel qaalow baa xalaal ah su'aal kasta oo la weydiiyey ceel qaalow bay ka garabtay ma garanayo ceel qaalow wuxuu ku qaatay khayr allaha siiya odaygaabaa asaguna la keenay asaguna halkaasay la aada baxashay arkaysaa qof kasta oo muwaadina oo xilka dalka loo dhiibo oo muwaadina oo meesha imaadaa ma noqdo qof ka cadaalad sameeya qof si dhaba u wajaha warwaraaqda waxaa noogu qoran garbaari baa lagu qabanayaaye deegaamooyinka doorashada waa lagu qabtay aynu garbahaare ku qabanno wixii taaganna aynu saxano qof soomaaliya oo arrintaasi kara waa lawa qof kastaba halkaas isku qaadaya qof walba halkaas isku qaadaya dhowr sanaynu arrintaasi hor taagnayn dalkii doorashadiisu dib u dhacday dalkii uu galay qalqal iyo waxa loo yaqaano fawdo loogu talagalay ama kuraasta annagu aynu qaadanno ama aynu dalka fawdayno finally ninkii la keenay ee guddoomiyaha baarlamaanka ahaa inu malaynayo inuu qofkii 6aad iyo qofkii 5aad ahaa ma garanayo arrintan gala ayaa isaguna soo saaray waraaq xalla waxay ka socota cid aan taqaana isu jirto cid u ogolaatay awooddaas siisay ma jirto executive order baa waraaq buu iska soo saaray markaasuu yidhi waa in maxaa la yidhahdaa 16kii ceel qaalow baa sax markii aan fiiriyey
markii hal qodob uu ninkaasi uu soo darishday ma jirto meesha wuxuu ku soo qoray markii aan fiiriyey markii aan u kurugalay markii aan fahmay markii aan arkay adigu ma executive baa tahay madaxweynaha tahay adigu arkaysaa madaxweynaha loo ogol yahay awoodda sidaa oo kaleeta ah in markii uu xaalad dalka uu fiiriyo uu soo saari karo awood adigu speaker baa tahay reer baa ku doortay at the end of the day waxaa tahay aadan madoobe aan la hadlayaaye nin ay jifa soo dooratay oo waxaa tahay qabiili ah oo maxaa la yidhahdaa xildhibaan oo beel soo dooratay baa adoo marka xildhibaan ah oo beel ay soo dooratay inaad xildhibaano kaloo beel leedahay aad tahada markii aan fiiriyey markii yaa ku siiyay adigu mas-uuliyaddaas no adigu waxaad u tahay afhayeen iyo maxaa la yidhahdaa baarlamaanka u tahay adigu ma tihi ninkii maxaa la yidhahdaa maxkamadda joogo xaakimka ahaayo asaga tuu qaato usha qash siinaya markii uu dhegeysto ma tihi adigu that's not your job jabka waxaa weeye inaad baarlamaanka horgeyso in laga doodo kabacdina meesha loo badan yahay inaad soo gudbiso daarided wax kale meesha kulada ma jirto marka ninkii odayga hawlaaqdii uu soo saaray dhaqaaluu ku qaatay imaaraadkii sacuudiga markii hore imaaraadka lagu yiri keliyaba laakiin waxaan dagaal ka soo ogaaday in imaaraadkii sacuudiga ninkaasoo dhaqaala ka qaatay arrintaana sida lagu socodsiiyey waxaan helay xog runtii aanan aad u dhexgeli doonin oo ka timaada dhanka ka imaatay dhanka iyo filada oo la ii xaqiijiyey in madaxweynuhu uu yiri halkaas uu la aaday yaan looga daba tegi ha loo sii daayo intaan ka badan dalku uma taagnaan karo oma cayubnaan karo 16 kursi ee gobolka gedo dalku uma taagnaan karayo faraha laga qaado halkaa ka baxay kolley waxay noqon doontaa marka in 16 garbaharey laga soo doortay ee doorashada banaanka istaagaan 16 qeyr qaar laga keenana ee marka ayagu ay soo galaan isla markaasna ayagu ay codeeyaan arkaysaan sidaa buu qaatay baa lagu yiri go'aana madaxweynuhu inuusan arrintaasi uusan ka daba teginin walaaqda dambana uusan ka soo saarinin halkaa uu ka haro waayo qof walba oo la keeno haddii lala soo bilaabo dowlad dambe la bilaabay oo cusbayd guddoomiyadii baa haddana soo bilaabay haddana qof kastoo yimaada hawshu waa soconaysa ilaa hawshan isaga tago marka kolley awal baysan jirin baan u malaynayaa xildhibaano soomaaliyeed oo ayagu ay matalaan mid walba balaayaa boobtay kuwii puntland balaayaa boobtay kuwii jubbaland balaayaa boobtay cid walba waa la boobaye dee reer gedo ha ka mid noqdaa dadkaa la boobaya ee soomaaliyeed bay ka mid noqonaya wax kaleto oo ayaga ku haasa ma jirto kolley intii wakti la gelin karayey awalba inay halkaasi ka dhacdo unbaa la rabaa haddii raba ha la boobe in garbaari xataa lagu boobo bay ahayd muhiimad intaas bay ahayd taa marka halkaasaan ooga tegayaa kuraastaasi sidaasay ku tagtay waxaan maqlayaa in niman ka mid a nimanka ceel qaalow ka yimaaday in maalmihii lasoo dhaafay oo dhan ay la hadlayeen dad si dhow madaxweynaha uga agdhow ay lahaayeen hadnala sii daya hadii nala sii daya annagaa madaxweynaha u codeynayna annaga hadnala aqoonsado oo ayagu ay ahaayeenba kuwa u kambeyn garaynayey in la sii daayo kabacdina ay madaxweynaha u codeyn doonaan waxaan kaloo maqlayay in qayba ayagu ka mid ah la filayo inay dhankaa iyo madaxweynaha ay maraan kolley anugu waxba ka filmahayo nin baan maalin hore ku yidhi anigu xildhibaan soomaaliya joogo imatala ma jiro waxaan arkayay kuwa ku haya hebel baa imatala anigu cidna ima matasho nin soomaali jooga oo xildhibaan aniga imatala xuseen aana ma jiro waxaan ka wadaa xildhibaanku wuxuu matalaa dadka dalka jooga meesha ay ku nool yihiin ku nool ayuu matalaa anigu habar gaala ah halkan joogta oo cadaan ay matasha ayadaa dhulkeeda ku noolahay ayadaa shacabkeeda ka mid ah marka ummadda soomaaliyed walaalahay ah unbaan dhiigooda iyo waxa lagu sameynaya ka damqanayaa anigu kuyaan ogaa inaan matalaan cidda matalaan ayay u taallaa marka mana ahayn nin xanaaqsan laakiin waaba arrin aan weligay aaminsanaa ma ana horna mar baan sheegaan umalaynaya marka taa intaasaan oga baxaya kuraasta wixii kasoo baxo waynu arkaynaa laakiin kuraastaasi waa laga tagaa kiiskaasi wuu xirma ciddii markaa weli ag taaganay isaga taga finally ee doorashada u dhaxaysa soomaaliya doorashadii soomaaliya waa taagan tahay waxaan arkay xasan cali khayre oo xaalito inta meel ka istaagay soo ma doonaysaan ciidanka inuu dhismo soo ma doonaysaan inaad barwaaqo gaartaan soo ma doonaysaan inaad dhulkii cirka kala qaado soo ma doonaysaan haa gacantiinay ku jirta awoodda aniga doorta ma shacabka wax dooranayo cidda ula hadlayo maxarir axmed iyo yarkii ii sheeg cabdidhaanto yaa dooranaya funny wey marka waxay muujinaysaa in uusan ahayn xasan cali khayre in xataa fahmay halka inu u soconaba in la doorto iska daayo waxaan idiin sheegayaa marka cidda ay u dhaxayso maanta mar baan soo qoray doorashada dalka cidda ay u dhaxaysan idiin sheegaya aayad qur'aan ama hadalkayga ama predictionkayga iyo xog aruurinteedu wayna qaldami kartaa wayna saxmi kartaa markaan soo aruuriyey waxyaalo badan waxaan fahmay oon ogaaday laba kooxood bay u dhaxaysaa siyaasad dalka oo dhanba laba kooxood bay u dhaxaysaa laba kooxood oo kaleetana kuwaasay ka agdhow yihiin oo ay dabada ka riixaan waa 4 kooxood laakiin laba si adag isku haysa waa labada ay doorashada u dhaxayso
haddaan si kale u dhigo dadka reer nabad iyo nolol labay u qaybsan yihiin dadka kale ee mucaaradka sheeganaya oo dhanna labay u qaybsan yihiin reer nabad iyo nolol dad bay dagaalka dhab ka yahay dalka in hore loo wado ay ka dhab tahay caraysan very extreme ah dagaalka uu ka dhab yahay oo diyaar u ah dalka in la bedelo qayb baa sidaa qayb baan sidaa ahayn oo ah dowladdu shaqo fiican bay qabanaysaa laakiin meelaha qaarkood bay ku qaldan tahay nimanka marka sidaa dhahaya ama siyaasiyiinta ha aadaan ama shacabka ha aadaane waa dad ka agdhow oo la fadhiisan kara oo la naqaashi kara oo la macaamili kara oo wax la cuni kara kuwa mucaaradka sheeganaya waana muxaafid laakiin waa muxaafid moderate awey waa niman iyaga dhexdhexaad iska dhigaya weeye laakiin muxaafidkay u badan yihiin sidoo kale mucaaradka nimanka la yidhahdo qaar baa extreme ah qaar baa waxay taagan yihiin waa in farmaajo dalka laga saaraa oo qabiil looga saaraa oo qori looga saaraa oo wax walba farmaajo waa inuu baxaa qaar bay u maraysaa waxaa ma qabanin waa qabyaalayste way ooyayaan qaar bay halkaa u maraysaa extreme ah kuwa kalaa jira ayagana mucaarada oo ku haya ninka wax uu qabtay laakiin waxaa ka qaldan yihiin in wax la saxaa marka loo baahan yahay so marka waa afar group laba waa extreme mucaaradka muxaafidka laba kalena waa yara moderate oo waa yara degan yihiin xaaladooda aad dad u halkaysan may ah arkaysan so marka muhiimaddu waxay tahay waxa dalka isku haya waxaa weeye waa nabad iyo nolol iyo nimanka damu jadiid la yidhaahdo damu jadiid soomaalida waxay u taqaanaa xasan sheekh maxamuud keliya damu jadiid intaa way ka fara badan tahay damu jadiid inta hadda ugu awooda badan waa siciid deni iyo xasan sheekh maxamuud laakiin dad badan baa ku jira cabdikariim maxamed xuseen guuleed baa ku jira ki yaraayo gaabnaa baa ku jira magaciisa ma qabto oo caddaynta badnaa rag badan baa ka buuxa aad bay u fara badan yihiin arkaysaa waa kooxa badan ayagu marka waxyaala yar yaraa oo aan fogeyn bay u kala duwan yihiin laakiin waa isku same group muhiimaddu marka waxay tahay marka labadaa kooxood baa dalka isku haysaa xasan sheekh maxamuud iyo ninka loo yaqaano siciid cabdullaahi deni labadooda kii codad bata ayaa wareegga dambe u gudbi doona ka kale tar ciidankiisu ku dari doonaa labadooda markii la isku daro oo aan soo celcelinay qiyaas ahaan xildhibaanada ay heli karaan ilaa iyo 70 ilaa iyo 80 xildhibaan maximum way heli karaan marka labadooda la isku daro rag badan baa ku jira labada dhinac marka siciid deni waxa uu wato ama puntland ha ka yimaadaan ama jubbaland ha ka yimaadaan dad badan baa ka hari doona waxaa raaci doona keliya inta xanaaqsan oo nacaybka uu ku jiro oo very extreme ka aba raacaysa bas xasan sheekhna waxaa raaci doontaa kuwa sidaa oo kaleta mahad salaad iyo ninkii la oran jiray isha kii si haysan jiray sambalolsho iyo kuwa noocaaya maaragteen oo mucaaradnimada sida qaladka ka aaminay diyaarka waa inay xoolaha qashaan oo aynu naqaanay asna kuwaasaa la socda kana waxaa la socda ninkii sanyara lahaa iyo rag noocaaba asaga la socda marka waa tusaalayaal ka mida laakiin labadaasi dadka ay wataan waa mucaaradka extremeka ah oo ka dhabka ah in la dagaalamo sheekh shariif iyo ninka loo yaqaano xasan cali khayre nimankaas waana la socdaan si weyn oo lama socdaan xildhibaanada ay nimankaa wataana marka ugu horeeya ayagaasay u codayn doonaan uma codayn doonaan ninka loo yaqaano khayre iyo ninka la yidhahdo shariif waayo khayre iyo shariif waxay ka dareemayaan si ay ugu arkaan niman yara jilicsan oo qadiyadda farmaajo aan ka rusheegaynin oo mararka qaarkood hoos kala socda may doonayaan inay sida ahaadaan waxay doonayeen inay ayagu siday noqonayaan ila noqdaan bay doonayaan marka waa laba group waana isku group aragtiyan khayre iyo shariif waxaan marka hore u qabay dad meel gaaraya laakiin waxaa bahayaan hadalkay iga soo qora waa suurtagal in shariif iyo khayre ay gudbi waayaan waa suurtagal mana aha cidda ugu dambaysa oo ayagu doorashada finalka farmaajo la geli doonta ayagana ama waa siciid deni ama waa xasan sheekh labadaa nin baa farmaajo finalka la tagaysa ciddii badanaysa ilahay baa yaqaan taa waa halkaas reer nabad iyo nolol nimankooda yar dhexdhexaadka ah ee aan aad mataqaanaa aan u bahalkaysanayn qayb ka mida ayaa xasan cali khayr la socda weliba qayb aan badnayn xoogaa galmudug ka timaaday niman odayaaloo isku sheegay inay xoogaa yara intellectual yihiin oo galmudug ka yimaado kooxaa jira oo markay u bataan ilaa iyo 8 iyo 7 midkooda qayb kale dhankan iyo hirshabelle waxbaa ka soo baxay iyaguna xoogaa kaloo ayaguna reer waqooyiha oo la qaylaa jiran la fariista xoogaagaas wataa xasan cali khayre ma badnaa mana dhaqaajin kara baasha waxaad ka arkayseen xalay meeshay u maraysay ayaad ka arkayseen waxaan isdhihi karaa markii aan loo badiyo xasan cali khayre oo loo waasho 30 xildhibaan xasan cali khayre hadduu helo wuu dadaal aad buu u dadaala shariifna sidoo kale 40 meeyo meelaha ka badan ma keeni karo ma arkaysaan marka labadoodu isma raaci karaan waayo shariif ragga la socdaa raggan kale raaci karaan mucaaradka bay raaci karayaan oo muxaafid ba soo aadi karayaan kuwa la socda ninka loo yaqaano xasan cali khayrana
kuwaa nabad iyo nolol bay u laaban karayaan waayo marka hore ayaga la socdeen oo xoogaa yaroo difference yarra u dhexeeya marka rag xilal waayey oo farmaajo aad uga fogeyn markii xilka laga qaaday khayra raacay iyo niman hadda ayaga la jooga iyo niman xoogaa iska dhiga hadda nabadna la socdaan iyo kuwa nooca ayaa khayro u dhuuman doona marka dambana way kasoo laaban doonaan baan isleeyahay so marka labadaa nin dadku aad ka wadaan iga soo qora nimanka maaha nimanka dhabta ah ee doorashada ku jira nimanka doorashada ku jira ee dagaalka badan iyo imaaraadku boorsada ku agwado waa Siciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud wayna iskaabayaan doorashada wareegga dambe kii cod badan bay kaabayaan waxay kala wataan kooxo kala yar ah oo fara badan bay wataan markii aan qiyaasay oo meel walba ka istaagay oo xoga badan aruriyay haddii xataa isku tagaan Xasan Cali Khayre iyo Shariif iyo Siciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud afartoodii xataa isku tagaan oo saa u dhacdo xataa isku tagaan codadka ay keeni karayaan markay u bataan waa 140 130 meelaasay keeni karayaan arkaysan sidaa hadday noqdaan ma noqon doonaan niman xiri karaya 50+1 ciyaarta ma dhamayn karaan afarta markii la isku daro iyo farmaajo codka uu heli karo ayaa very similar ah oo aad isugu agdhow waxaan islaahay marka codadka kale ee nimankan farada badan ay guranayaan oo kale oo labada ah iyo saddexda ah iyo shanta ah oo yarka ah lagu kala badin doonaa waa sidaan islaahay weey so marka conclusion-kaygu wuu dambeeyaa waan idin sheegi doonaa kulli waxaan islaahay possibility-gu waxay u badan tahay ciyaarta inay xataa wareeg saddexaad ay gaarto waa sidaan islaahay oo wareegga koowaad iyo wareegga labaad ma la kala badin waayo oo wareeg saddexaad ay gaarto waa suurtagal way u badan tahay waxaa kaloo suurtagal ah haddii nabad iyo nolol ay si weyn ay usoo dhaqaaqaan inay wareegga hore dhameeyaan oo suurtagal laakiin marnaba suurtagal ma noqon doonta ciyaartu inay wareegga labaad ku dhammaato oo waana meesha ay ku dhamaan jirtay sanadkaani ciyaar wareegga labaad ku dhammaataa ma jiri doonto ciyaartu hadday socoto ilaa wareeg saddexaad bay gaari doontaa haddii kale wareeg hore la isjiri doonaa hadba waxay ku xiran tahay sida loo campaign gareeyo maalmaha soo socda sidee tahay rajada madaxweynuhu والله aad bay u fiican tahay rashada madaxweynuhu aad bay u sareysaa shaqo badan baa socota ma qodqodayo xilli wax la soo qodqoda lama joogo xilli xog laga bixiya raggeena ma joogno arkaysaa marka rashadu waa fiican tahay laakiin waxyaalo badan baa isku muuqda waynu arkaynaa intaas maanta kusoo koobaya dalka Allah badbaadiyo doorashada mid khayr qabta Allah nooga dhigo laakiin waxaynu kala dooranaynaa waa nabad iyo nolol iyo dambi jidid hadii marka Soomaalidu ay maanta diido inay wixii socday la sii wado meeshii ugu xumayd bay ka bilaabaysaa ha ku soo dhawaadaan Siciid Cabdullaahi Dani Siciid Qurux meel oran jiray iyo Xasan Sheekh Maxamuud mid kooda ku soo dhawaadaan wax khayr la yiraahdaan ma jiraan wax sharaf la yiraahdaan ma jiraan labada nimidna ma socon karaan dhaqaalana ma hayaan ciidanna ma hayaan ragna ma hayaan waayo way ku dhaxlumeen mucaaradka extreme kana ma aha muxaafidka extreme kana ma labadaasaana meesha awoodda isku haysa niman dhexdhexaada cid badan raacaysa ma jirto marka khayr campaignkiisu waxaan islaahay wuxuu ku wanaagsanaan lahaa doorashadii uu diiday inuu dalka ka qabto unbay ahayd arkaysaa waa ninkii 3 sano isagoo dalka rasaare ka ahaa doorashada isaga loo dhiibay last minute soo istaagay yiri doorasho lama boobahayo it's your responsibility yaad u sheegaysaa aan dalka rasaare ka lagu dhiibay doorashada daawada fawziya ka hadlaysaa faylkii doorashada meel buu iska gashaday buu markuu arkay inaan la qaban karinin buu qeyr jabaan la bilaaba marka ay gonna pay the full price welcome to the Somali politics khayr soo dhow inta saa kusoo koobaya maanta insha Allah ta'ala inta dib isaga soo laabanayno yani ka tagay amaana Allah insha Allah dalka loo duceeyo bindillah wa soo laaban doona insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh